أنا مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo iigu magacawday xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya waan ka aqbalay waxaana aad ugu faraxsanahay in aan anigoo dadkii iyo dalkii waajibkay saaran ka shaqayn doono inaan kula shaqayn doono si hufan oo habsami leh waa ogahay inuu yahay xil aad u adag waa ogahay waddanku inuu joogo meel adag dadka Soomaaliyeedna ay u ooman yihiin dawlad waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyo soo jeedista madaxweynaha